السلام الله عليكم ورحمة الله سؤال وهذا صاحب بيال ماشان waa Sacuudi Carabiya nimankan waxa la yiraahdaa almuruur waa nimanka mukhaalifaadka qaabilsan waa nimanka qabta dadka mukhtalifiinta aan sharciga haysan maanta howlgal ay sameeyeen bay waxay ku heleen arrinkan oo la yaab ku noqday dunida oo dhan markay soo bandhigeen nimankan halkan degan xafiiskan degan waa niman saddex ah Bakistaaniyiin ah saddexdooduba sharci ma la ogow waxay ku soo galeen sharci darro wadanka ka bacdi waxay ku rakibtay kombiyuutarro halkaas waxay ku sameynayaan waad aragtaan maqsinkaas wuxuu sameynayaa mashiinkaasi iqaamaadka wadanka lagu joogo oo mukhtalifka ah matalan aniga hadda ka hor ayaan qaatay waan ku shaqaysan jiray iqaamaadkan mukhtalifka ah oo beenta ah waxa la yiraahdaa badal faaqid qof sharci leh ayaa laga soo sawiranayaa sharcigiisii sawirkiisa loo geynayaa ama iyaga haysta waayo aaladahii la isticmaalayaan ku dhex jiraan ababkay ku jiraan macluumaad kala baxayaan ka bacdi wajiga bisa laga bedelayaa adiga sawirkaaga waxa lagu saarayaa iqaamad uu qof leeyahay iyadoo sax ah baa lagu soo saarayaa wajigaada un baa saaran magacii ruuxi baad sheeganaysaa marka sidaas ayaa lagu shaqaystaa shirkadaha loogu tagaa waxa lagu qiyaami jiray xitaa dawladda marka maruurkan ku qabtaan kaata hawiye ku yiraahdaan ama kan iqaamo ku yiraahdaan iyadaad u dhiibaysaa markaad u dhiibtid waxa weeye wajigaadii baa saaran magacoo saddexana sheeganaysaa cimrigaaga sheeganaysaa waqtiga taariikhdaad sheeganaysaa khalaas way ku sii daynayaan hadda waa la isku fahmay marka waxa la keenay markii nimankan la arkay oo nimankan sirta ay fashiliyeen oo lagu qabtay mujaamalaadkan iyo waxyaabahan ay sameynayaan badal faaqid markii lagu qabtay waxa la soo saaray mashiin marka lagu qabto lagu la hadlay ma adiga fard soolkaad meel saaraysaa hadduu been u yahayna been waa u leeyahay hadii kale waa run ayuu leeyahay sharci leedahay wabillahi